fitnooyin la yaab badan ayaa dhacaya oo maantaba aynu aragnaa qaar ka mida inay dhaceen oo caalamka islaamka iyo adduunkaba ay ka dhaceen. nabigeenna sallallahu alayhi wasallam wuxuu inooga warramay fitnooyin fara badan oo dhici doona aakhiru zamaanka, qaar badan oo ka midana aynu aragnay. xadiiskii Abu Daawud iyo Ahmed musnadkiisa uu ku soo saaray ee xaakim iyo qeyrkiiba saxiixiyeen waa xadiiskii Cabdillah ibn Umar ilaahay raalliha ka ahaaday isaga iyo aabihiibe. wuxuu dhahay kunna qu'uudan 'inda rasuulillah, waxaanu ahayn kuwa fadhiya rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam agtiisa. fadhakara alfitana, markaasuu nebigu ka warramay fitnooyin dhowr ah oo uu ka sheekeeyey. faakthara wuxuu badsaday ama uu badiyey fii dikriha ka sheekaynta iyo xusidda iyo ka warramidda fitnooyinka, xataa dakara ilama uu ka xusay oo ka tilmaamay oo ka sheegay fitnata alahlaasi, fitna la magac baxday fitnada ahlaaska. fitnada ahlaaska waxa weeyaan ereygan ahlaas waa xilsi buu ka soo jeedaa, waana erey macnihiisu af Soomaali ku noqonayo daah ama kabadda geela la saaro oo dusha laga saaro markii la rarayo oo huga uu noqoto geela saasoo kale. marka waa fitno huga ama sida marada oo kale dadka ku ah oo ku dhagan oo aan ka fuqaynin weeyaan. faqaala waxaa hadlay qaa'ilun, mid hadlay baa hadlayo wuxuu yidhi yaa rasuulallahi, rasuulki ilaahayow, wamaa fitnatu lahlaasi, waa maxay fitnadan ahlaaska ee dadka ku dhagan ee aan ka foqaynin? qaala wuxuu yidhi nebigu hiya waxa weeyaan fitnadaasi harabun waa kala yaac iyo kala orod iyo kala firdhasho iyo iscaydhin, cadaawad iyo colaad weeyaan. wa xarbun waxa kaloo weeyaan waa boob iyo dhac iyo bililiqaysi xoolaha iyo maalka lagu dhacayo weeyaan. fasubxaana allah, laa ilaaha ila allah. fitnada noocaasa waa la arkay, wayna dhacaysaa maanta adduunyada way ka dhacaysa in dadka muslimiinta ahi ay cadaawad iyo colaad iyo colnimo isu hayaan, iyo inaan markaa la dhowraynin xoolahii iyo naftii iyo markaa waxa weeyaan sharaftii midnaba. thumma wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam intaa waxaa xigta oo fitnada marka laga yimaado dadka ku dheganaanaysa ama aan kaba fuqayninba, fitnatun fitno kale oo la dhaho magaceeda assaraa'i, fitnada barwaaqa sooranka. fitnada barwaaqa sooranka laba macnoba culummadu way ku fasireen. mid waxay dhaheen dadka ayaa markaa barwaaqo gaadhaya oo caafimaad bay dadkii helayaan ama sixo wanaagsan, sidoo kale xoolo iyo dhaqaale fiicanna way helayaan. kadibna macaasidii iyo dembiyadii ayaa badanaya, halkaas baa fitnada iyo tulooyinka iyo imtixaanadu ay ka dhacayaan. culummo kale waxay ku fasireen oo waxay dhaheen fitnatu saraa'i, fitnadan barwaaqa sooranka ama farxad gelinta waxa weeyaan waa fitno farxad gelinaysa cadowga islaamka iyo muslimiinta ayaa ku farxaya fitnadan, taasoo markaa ayna tusinayso in dadka muslimiinta tafaraaruq badan iyo kala qaybsanaan badan ay ku imanayso oo ay cadowgoodu markaa ku farxayaan run ahaantii. wuxuu dhahay nebigu dakhanuha, fitnada qiiqeeda waxaa markaa hogaaminaya, oo qiiqeeda waxaa looga jeedaa waxa hogaaminaya oo hurinaya markaa min taxti qadamay rajulin, waxay ku hoos jirtaa cagaha nin min ahli beyti buu yidhi, ehelka beydkayga ka mida. nin ehelka beydka nebiga ka mida ayaa qiiqeeda hurinaya oo fitnada ka dambeeya marka. yazcumu ninkaasi wuxuu sheeganayaa annahu minni, inuu aniga iga mid yahay, oo uu tilmaamayo ama uu sheeganayo inuu ehelka beydka uu ka mid yahay,
oo uu nebiga nasab ahaan ama dhalasho ahaan ay isu xigaan ama waxa weeyaan ahlu beyti ba waxay ku fasireen oo lagu sharaxay inuu islaamnimo sheeganayo oo uu tilmaamayo oo cadeysanayo inuu muslim yahay nebiguna wuxuu yiri walaysa minni kaasi anigayga ma mid ah oo waxa weeyaan ehelka beydkaygana kama mid aha haddii diin ahaana uu u sheeganayo islaamnimada ma aha weeyaan sidoo kale xataa haddii ay ehelka beydka ay isku qolo noqdaan oo isku family ay ka soo jeedaan ma aha ninkaasi nin haysta hanuunkii nebiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisi walaysa minni aniga midiga ahaaday xaggayga ma aha ayuu dhahay nebigu sallallahu alayhi wasallam wa inama awliyai waxa kale uu nebigeenu yiri aniga awliyadayda ama sokeeyahayga waxa weeyaan almuttaquna wa kuwa alla ka cabsada halkan oo ay nooga cadaanayso inuu shakhsigaasi yahay qof ehelka nebiga ka soo jeeda nasab ahaan ama dhalasho ahaan hase ahaatee aan haysanin hadyigii iyo hanuunkii nebiga sallallahu alayhi wasallam hana yaabin waayo waxa badan dad badan oo ku shaqaysta magaca iyo nasabka rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee sharafta badan oo ku adeegta nacuudu billah thumma yastalihu an-nas kadibna dadku waxa ay ku kulmayaan waxa looga jeedaa macnaha waxa bay'a lala gelayaa oo heshiis lala gelayaa ala rajulin nin ba marka heshiis lala gelaya oo madax laga dhigaya marka ninkaasi wuxuu ku tilmaamay nebigu kawarakin ala dhila wa nin misig iyo fadis haysata misig iyo fadis haysata warik waxa weey waa misigta ala dhila'ina waa fadh marka fadh iyo misigi sida isu qabsanayso aad bay u adagtahay laano way kala fog yihiin taasoo culimadu ay ku fasireen in ay tahay ninka madaxda noqonaya in dawladdiisaas ama xukunkiisaas iyo amarkiisaasi aanu ahayn mid sugnaanaya oo mid liicsan inuu yahay thumma buu yiri nebigu sallallahu alayhi wasallam waxa ku xigaya fitna la dhaho ad-duhayma fitna la dhaho duhayma waa daahiye weeyaan waa dahma weeyaan waa madow iyo mugdi iyo indhala'aan waa fitnada madowga mugdiga iyo indhala'aanta fitnadani waa tawgu daran waana tawgu weyn run ahaantii oo nebigu wuxuu tilmaamay oo wuxuu yiri la tad'u ahadan fitnadini cid kama tagayso ahadna ka tagi mayso min hadhihi al-ummati oo ummadda nabi maxamed ka tirsan ummaduna waxa dhici karaysa inay tahay ummatu risalati ummadi loo soo diray risaalada oo gaal iyo muslimba marka ay soo gudagelayaan marka bani aadamka oo dhan kama tagayso fitnadani marka illa latamathu latmat waxa weeyaan waxay fitnadani u dhirbaaxaysaa dhirbaaxo kulul ayay mid walba ku dhufanaysaa ku muslima ama ku gaal ah hala kala badsado hana la kala yaraysto marka musiibada fitnadani ay leedahay ayaa asiibaysa qof kasta meeshu doonaha joogi ahadnaba ka tagi mayso ee waxa weey waa mid asiibaysa qof kasta asiibaysa weeyaan fitnadani fa idha qila marka dad la dhaho oo dadkii ay dhahaan inqadat way dhamaatay fitnadii oo way gabagabaysanto waa gunaanadkii tamaadat markaas ayaabay sii kala baxaysaa oo sii soconaysaa oo maaragtay dib ay u sii shidmaysaa marka waa fitno waqti dheer qaadanaysa soconaysa dadkana maaragtay qof walba saameyn iyo raad ku yeelanaysa marka fitnadan halisteeda iyo khatarta ay leedahay wuxuu yiri nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan ninku wuxuu ku waabariisanayaa subixii ama gelinka hore mu'minan isagoo mu'mina oo ilaahay rumaysan ayuu waabariisanay wayumsi wuxuu galabaysanayaa gelinkii dambe kaafiran isagoo gaala
nacuudu billah gelinkii hore mu'min buu ahaa gelinka dambana wuu gaaloobay taasoo macnaheedu ay tahay yabiicu diinahu inuu diintiisa iibisanayo oo uu gadanayo dhowr saacadood gudahooda uu diintiisa uu ku iibisanayo waana fitna aad iyo aad u khatar badan xataa yasiira annaasu buu yidhi ilamaya dadku ay kala noqdaan ama ay noqdaan dadkii ilaa fustaatayni laba markaa magaalo ayaa loo kala baxayaa laba tuulo laba markaa waxa weeyaan kooxoodoo waaweyn fustaati iimaanin koox markaa ama magaalo iimaan uu ka buuxo oo mu'miniina oo iimaankii uu ka buuxo laa nifaaqa fiihi oo aan munaafaqad aya khayaano aanay ku dhex jirin wa fustaati nifaaqin iyo markaa magaalo ama koox kale oo munaafaqadi ka buuxdo laa iimaana fiihi oo aan markaa iimaan iyo mu'minnimo aanay ku dhex jirin waa la kala baxay marka subxaan allah oo laba kooxood ayaa loo kala baxay koox iimaankii ka buuxo iyo koox nifaaq iyo munaafaqadii ay ka buuxdo oo aan dhibic yaro iimaana lagu ogeyn nacuudu billah فإذا كان ذاكم وحدها هدبين مركز حلقة تاغن تهدين مرحلة داكو جرتان وقتها أمريسان فانتظروا هل سوغ مركام الدجال دجال عورك ومسيح الدجال أيا حلقة صوبحايا مركي كلا عداتو مؤمن إيو منافق لو كلا بحم فانتظروا وحاسوتان بوري الدجال مسيح الدجال كيبا لسوغيا من يومه مالنتاس أيوب صبحي أو من غده أما برديدا أو كحيتا أيوب صبحيا مسيح الدجال كو إلهي بان كما قنقلني فتنة ديسي أو واكي نبيغنو كما قنقلي تري إلهي صلاة كستا دحديسا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال شرك فتنة المسيح الدجال با نبيغا إلهي كما قنقلي تري فتن كان مركاها دبدعايا قاب ترتيبيسان أيو رسولكو شيخ صلى الله عليه وآله وسلم وحاوه الرئيسة فتنة أحلاسك oo axlaasku waa fitnada dadka ku dhagan oo aan ka fuqaynin oo sida marada ama marka huga la gashto oo kale maaragtay dusha ka saaran fitnatu sarra ba ku xigtay oo ahayd fitnadii marka kaga farxinaysay cadowga ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo yaani tafaraaruqa iyo kala firdhasanaanta dadka ay tilmaamayso oo cadowgii ama culkii muslimiintu ay farxayaan fitnada ugu khatarsan waa tii duhayma waa fitnadii daboolnayd mugdiga iyo habeenka iyo indhala'aanta ahayd ilaahay baan ka magan galnaye ee qof kastaba saameynaysay ama dhirbaaxa ku dhufanaysay taasoo keensanaysa in qofkii uu maalin keliya gelinkii hore uu muslim u ahaado gelinkii dambena uu gaaloobo isagoo iibsanaya diintiisa iibsanaya halkaasoo culummadu ay ka qaateen inuu qofku gelinka hore ay xaaraan ka tahay dhiigga walaaladii ama dhiigga muslimiintu uu xaaraan uu ka yahay mar allaale iyo markii gelinkii dambe la gaadhana uu xalaashanayo dhiiggii muslimiinta ama dadka walaalada ah xoolahoodii baa xalaal u noqday oo dhiiggoodii baa xalaal u noqday oo cirdigoodii iyo sharaftoodii baa xalaal u noqotay marka qofku hadduu wax xaaraana uu xalaashadana wuu ku gaaloobayaan kadibna waxaa ku xigtay fitnadii dajaalka ee weynayd oo marka waxa weeyaan cala tuul isla markiiba waxaaba la galayba calaamadihii waaweynaa ee saacadda qiyaame marka